qisadan waxay ka hadlaysaa saddex nooc oo dadka ka mid ah. Aylah waa deegaan badeed dhaca xeebta badda cas iyo badda cad meesha ay ka galaan. qisadan waxaanu ku soo qaadan doonaa koox reer bani Israa'iil ah oo deganaan jiray xeebtan loo yaqaano ama deegaan badeedkan loo yaqaano Aylah, iyo qiso yar oo ka dhacday ee nala dhageysta insha Allah ta'ala biidhnillah al-baari. deegaan badeedkan waxaa deganaan jiray koox ka mid ah reer bani Israa'iil cahdigii nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. kooxdan qisada ayaa waxa ay ku bilaabanaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu ka reebay in ay malayga ay dabtaan maalinka sabtiga ah. ilaahay subxaanahu wa ta'ala itixaanaya daraaddeed ayuu wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala malaygii soo saaray maalinkii sabtiga ahayd oo malayga ay markaa waxa weyn laga xarameeyay. malaygii ayaa biyaha dul sabaynaya ayadoo markaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku itixaamayo waxa ay sameeyaan iyo inay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xuduudiisa u xaaladeystaan. maalinkii sabtiga ahayd ayay waxay sameeyeen meel hoobaana ayay waxay ka qodeen xeebaha afafkooda hore ayay waxay ka qodeen godad bay ka qodeen, shabaqyana way ku rideen. malaygii biyaha markii ay xeebtu soo buracato oo markaa hirku soo qaadaba malaygii ayaa wuxuu soo gelayaa hodaamihii ay ka qodeen biyaha afkooda hore. saa daraaddeed biyihii ayaa markaa waxa weeyaan had malaygii soo qaadaya shabaqii ayayna ku dhacayaan. saa markii ay ku jireen in badan ay ku jireen ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala itixaankii hadii way ku dhaceen. maalinkii axadda markii la gaaray waxay sameynayaan biyihii ayay malaygii ka soo baxsanayaan. markii la yiraahdo war maxaad sidaa u sameeyeen oo dad ducaada u imaadaan waxay leeyihiin annaka waxaan dabanay malayga maalinka axadda ayaan la soo baxnay. maalinka axadda ayay la soo baxeen waa sax, laakiin malayga waxa la qabtay maalinkii sabtiga ayaa la qabtay oo shabaqa lagu riday oo ay afafka ka xireen. saa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa ta'ala itixaankii markuu ku dhacay yaa waxaa dadkii qaryada deganaaba waxay u kala baxeen saddex qaybood bay u kala baxeen. qolo xaaraantii ilaahay ka reeba ayay ku dhaceen oo waxay ku dhaceen sabtigii laga reebo malayga ayay ku dhaceen oo axad ayaa loo fasaxay, sabtigii laga reebana way ku dhaceen. qolana waxay sameeyeen dadkii dembiga ku dhacay bay u tageen oo waxay dhaheen war ilaahay ka cabsada waa laydinka xaaraameeyey waxa aad ku dhacdeen. qolana gooni ayay u baxeen waxay la hadlahayaan kuwii ducaada ahaay oo la hadlayay qolyaha xeeladaystay oo xuduudda ilaahay subxaanahu wa ta'ala u xeeladaystay. waxay ku dhaheen oo maxaad uga digaysaan qoon ilaahay subxaanahu wa ta'ala ama dad ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu halaagi doono ama uu ku qaban doono cadaab daran uu ku qaban doono. markaas waxay dhaheen waxaan arrinka u sameynaynaa cudur daarasho oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u cudur daaranayno. oo maxay u cudur daaranayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinka qiyaamo dadka wuxuu weydiin doonaa maxaad qofka walaalkaaga ugu fiirsatood ugu digi weysay. saa daraaddeed si aan maalinka qiyaamo ilaahay subxaanahu wa ta'ala oon xujada aysan ugu oogmin ayaan annagana cudurdaar ilaahay uga dhiganaynaa. kuwan aan waaninaynana ama aan markaa wax u sheegayna waxa laga yaabaa oo dadka lagama quustee in ay markaa waxa weeyaan soo laabtaan. ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay saddexdii markii sida loo kala baxay oo qoomna dadka u digay kuwana ay markaa waxa weeyaan dhaheen war maxaad ka rabtaan kuwan ugu digaysaan, kuwana ay dunuubta ku dhaceen. yaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay markii ay halmaameen wixii lagu waaniyey ayaan badbaadinay kuwii xumaanta reebayey, kuwii dembiga la imaadana waan qabanay cadaab daran baa ku qaban. halkan waxaa lagu sheegay saddexdii qaybood laba qayb oo ka mid ah nimankii ciqaabka lagu riday oo markaa waxa weeyaan dembiga galay iyo kuwii ciqaabta ka digahayay oo la badbaadiyey. labadaas qaybood qaybtii saddexaad intee aaday qaybtii saddexaad ilaahay baa garanay meel ay ka baxeen. sababtu maxay tahay way ka aamuseen ciqaabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ragga way uga digi diideen, diintiin dadka way gaarsiin diideen. maadaama ay dadka walaalahooda u digi waayeen ilaahay waa ka aamusay. halkan waxaa lagu xusay oo libinta qaatay ama qaatay xuska qaatay iyo wanaag samey waa la badbaadiyey. kuwa kalena siday ilaahay uga aamuseen diintiisa uga aamuseen baa iyagana looga aamusay. ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay markay ku madax adeegeen ay ka madax adeegeen wixii laga reebay xaggii markay ka madax adeegeen waxaan ku niri oo aan amar ku bixnay daanyara ahaada dulaysan. kadibna ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa halaagay oo cadaab daran buu ku qabtay. ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga badbaadiyo. halkaa waxaan ka garanaynaa marka saddex qaybood oo dadka ka mid ah dadka ka aamusaya dadka walaalahooda xumaanta ku fiirsanahaya waxa weeyaan waa dhibaato iyo mataqaanaa dulinimo weeyaan oo walaalaha muslimiinta waxa loo baahan yahay inay isku digaan. halka marka waxaan ka qaadanaynaa kaleeto dadka dulmiga galayeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu u kaadinahayo. ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa amlaltu lil ladina kafaruu waan u soo kuwa zaalimiinta ahay kadib waxaan ku qabtay cadaab ayaan ku qabtay daran. saa ayuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala waxaa loo baahan yahay marka dadku inay iska ilaaliyaan xaaladaha noocaas oo kaleeto ah
ciqaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii xeelad xaggii ka ahaatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo baneeyay loo xeeladaystaahay ciqaabkan ayaa ka dhalan kara